بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وعيgu waa furaha guusha maanta barnaamijka aynu qaadanayno waxa weeyaan ma la socotaa anna cibaaraatana hiya allati tasnacu injaazatana wa anna nadratana lianfusina hiya allati tuhaddidu dariiqana maxaan ula dan leenahay maxaan ula jeednaa mathalan si caam aynu u soo qabanno Soomaaliya qof Soomaali ah ayaa waxa la weydiiyay war wadankaaga muxuu yahay markaas wuxuu ku jawaabay war wadankayga waa wadan munhag ah baaba'san rafaadsan xuruub iyo dagaalo ay ka socdaan ama wadankaaga wallahi waa wadan iska rafaadsan qofkan wuxuu ku jawaabay waa wadan leh ثروة حيوانية له ثروة السمكية له ثروة زراعية له ثروة شبابية له مسلمة يعني لبدا قف وحا كلا دوان نظرة أي ودن كودا كفيريين إيو كلمة ده يكو عبرين طيب سيداسي لمدا قف ولبا نفتي سمرك او يمادو waxa uu ku cabiro hadallada uu ku cabiro ama orahada uu ku cabiro iyo naftiisa sida uu arko waxa weeyaan mid xadidaysa gooshiisa ama sameynaysa dariiqa uu noloshiisa ku socdo waxa la sheegaa shirkad ka shaqeysa dhismaha inuu maalin maalmaha kamida maamulihii shirkadaasi uu aaday shirkadiisu guri ay ka dhisaysay ama cimaaro ama dabaq dheer ay dhisaysay si uu soo kormeero shirkadiisu qaabka ay shaqada u hayso waxa uu yimid shaqaalihii dhisayay markaas ku hawlana shaqada cimaarada ama guriga inay dhisaan waxa uu yimid saddex nin oo marka iyagu shaqadoodu ahayd inay dhagxanta meesha lagu dhisayo ay jajabiyaan waxa uu weydiiyay saddexdooda hal su'aal oo isku mid ah halka su'aal isku mid ah ayuu weydiiyay saddexdooda waxa uu yimid kii koobaad waxay su'aashaasi maxaad samaynaysaa maada tafcal كي كوباد يا واحد كجوابي أنا أكسر هذه الحجارة كما أمر رئيسي يعني واحد ججبين يعني ولك حنتن سيدا أو أمري يعني نينك إنجنير كمركز إيه مدحض أنا جاء waxa uu ka tagay waxa uu tagay kii labaad ee isna dhagxanta jajabinay waxa uu ku yiri war maxaad sameynaysaa markaas wuxuu ku yiri dhagxantan ayaan qurxinaya si wanaagsan oo jamiil ah si cimaaradan ay u qurxiyaan kii labaad kii saddexaad ayuu u tagay waxa uu ku yiri war maxaad sameynaysaa waxa uu ku yiri miyaadan arkaynin waxaan dhisaya naadixatu sixaab yani dabaq dheer oo ku dhawaan doona daruuraha ama ba dhaafi doona ama hirdin doona oo markaas dabaq aad iyo aad u dheer oo umada cajabin doona saddexdan qof waxa weeyaan saddex qof oo kala duwan kan koobaadi waxa uu isku arkay adoon inuu yahay oo shaqadan uu ku qasban yahay kan labaadi wuxuu isku arkay inuu yahay fannaan يعني فنان قف wax qurxinaya ka saddexaadi wuxuu isku arkay qof dumuux leh qof leh hankiisu sareeyo ama qof meel sare ku fakaraya oo naftiisa sida uu arkay ayaa sidaas ahayd maxaan ula dan leenahay qof waliba marka hadaba gooshiisa ama naftiisa barta ay ku socon doonto waxa xadidaysa sida uga jawaabay su'aashiisa iyo sida uu naftiisa u arko dayib adiga hada mesela hadii aan ku weydiiyo maxaad qabataa qof hada mesela qof hada maanta shirkad ka shaqeeya hadii uu shirkad ganacsi ka shaqeeya aan weydiiyo maxaad ka shaqeysaa oo igu yiraahdo shirkad meeshan u kalaha aan ku rafaado mid cusbatal ka shaqeeya ayaan weydiiyay war maxaad ka shaqeysaa hadii laba qof oo cusbatal ka shaqeysa oo mid igu jawaabo cusbatal meeshan aan ku rafaado oo mid kale igu jawaabo waxaan daweeyaa dadka waxaan caawiyaa dadka waxaan nafta ayaan badbaadiyaa arday ama shaqeeya ardayga shaqadanimadu waa ardaynimadu waa shaqo qof markaas shaqadiisu ay tahay inuu jaamacad aado ama arday jaamacadeed ayaan weydiiyay markaas wuxuu igu yiri war bugaag ayaan qaataa oo meeshan la aada yani qofkaasi haduu ahaa qof muhandis midalan ah uu ku jawaabo anigu waxaan ahay waxaan hayaa shaqo ah inaan noqdo muhandis kabiir ah مثلا اي شيء معناه قف هذا مانت ganacsi dhigta waxaan rabaa inaan waxaan dhigtaa sida ganacsiga loo barto sida ganacsiga loo hormariyo sida ganacsi loo qabto yani qof waliba waxa xadidaysa waxa uu marka ku fakarayo ama sida uu u fakarayo naftiisa u arko iyo sida uu uga jawaabo waxa uu marka hayo lidalika inaad ogaato oo aad iska bedesho wacyigaagu waa furaha guushaada inaad iska bedesho waxa aad ku fakarayso iyo sida aad u jawaabayso si aad u noqoto هي التي تصنع إنجازاتك وهي التي تحدد طريقك للحياة. أدبا ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.